wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta dowlad goboleedka Galmudug ayaa xalay degmada Xeraale ka daafurtay dhismaha golaha deegaanka Xeraale waxaa ka qayb galay munaasabadan wasiir dowlaha ahna kusmaha wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Galmudug mudane Cumar Maxamed Diiri iyo Cumar Guureeye wasiiro xildhibaano heer federaal iyo heer maamul goboleed ah maamulka degmada Xeraale iyo qaybaha kala duwan ee bulshada reer Xeraale Bashir Daahir Yuusuf gudoomiyaha degmada Xeraale oo hadalka furay ayaa sheegay in ay diyaar u yihiin in ay dardargeliyaan dhismaha golaha deegaanka soo dhawaada ku soo dhawaada daahfurka degmada Xeraale waxaad ogtihiin in juhdi badan loo soo maray degmada Xeraale oo ay u soo mareen dad kala duwan oo badan oo ugu horeeya madaxweyne Axmed Kaariye Qoorqoor iyo labada golaba oo Galmudug iyo dad badan oo juhdi galiyay oo degmada u dhashay inaan cid kasta oo naga taageertay daahfurka golaha deegaanka iyo degmanimadaba inaan u mahadcelino habeen mudan waxa weeye waa habeen farxadeed waa habeen noogu jirta baal dahaba wasiir dowlaha wasaaradda arrimaha gudaha Galmudug mudane Cumar Maxamed Diiri ayaa ka warramay faa'iidada shacabka ugu jirta inay sameystaan golo deegaan oo la xisaabtamo maamulka degmada isagoo sheegay in uu daahfuran yahay golaha deegaanka degmada Xeraale waxaanu u dabaaldegaynaa oo xilligan halkaan u soo jeednaa oo ku faraxsanahay inaanu degmada Xeraale u daafurno dhisidii golaha deegaanka degmada Xeraale laga bilaabo saacadan waxaa furan oo daafuran dhismaha golaha deegaanka degmada Xeraale waxaan u malaynayaa waxgaradka iyo mas'uuliyiinta degmada Xeraale dardaaran inay ka dhayihiin saacada laga bilaabo waxaan sugnaa oo waqti yar oo kooban wasaarad ahaan idin siinayna haddii alla idmo inaad soo diyaarsataan odayaashii soo xuli lahaa xubnaha golaha deegaanka waqti yar oo kooban insha Allah isla hoolkan waxaanu u diyaar garoobi doonaa doorashadii golaha deegaanka xubnaha golaha deegaanka gudoomiye iyo gudoomiye ku-xigeenkii la dooran doono ee degmada Xeraale qaar ka mid ah mas'uuliyiinta munaasabadan ka soo qayb galay oo isugu jira wasiiro iyo xildhibaano ayaa u mahadceliyay guud ahaan maamulka Galmudug madaxdiisa wasaaradda arrimaha gudaha Galmudug oo heerka maanta Xeraale soo gaarsiisay iyagoo bulshada ay matalaan ku baraarujiyay in la dardargeliyo dhismaha golaha deegaanka waan rabno bisha Janaayo ugu horeyso sanadka 2023 in degmada Xeraale ay ka mid noqoto degmooyinka dowlad goboleedka Galmudug si ay ku hesho budgetkeeda dhaqaalaheeda mashaariicdeeda horumarineed oo aysan uga harin degmooyinka kale marka waxaan rabaa inaan ku soo koobo arrintaas dadaalkaas iyo waqtigaas dheer oo annagana la kaga baahan yahay odayaasheena siyaasiyiinteena culumaa diinkeena saraakiisheena inaanu ballan qaadno arrintaas inaan wasaaradana la fududeyno sida ugu fudud oo ugu farsamo badanna aan uga la shaqeyno haddii ilaahay lakabkaasi wuxuu ku taabageli karaa in la helo ka qayb qaadasho bulsho oo dhameystiran annagu shaqada caaway meeshan aan joogno wixii farsamo aad nooga maarmi weydaan maahe caawa meeshaas aan joogno way annaga waxay noo tahay intii heerkiina kaga baahnaa caawa laga bilaabo qaybaha kala duwan oo bulshada waxa u yaala inay soo xulaan ergadii iyo xibnihii golaha deegaanka ee degmada Xeraale dadkaas oo ah dadka elite ah oo dadka maaragtay lagu yaqaano aqoonta iyo waxtarka iyo amaanada waxa caawo kale ama maanta kale sanad ka hor soo dhamaaday hanaankii ama geedi socodkii dhameystirka degmeynta Xeraale oo waqti badan iyo marxalado badan soo maray
ayaa si buuxda dowladda galmudug si waafaqsan dastuurka ku meel gaarka ee Soomaaliya waxay dhammaan sharciyeyntii degmanimada u dhamaystirtay dadaal iyo haddana waqti badan kadib sanad ka bacdi waxa haddana caawa noo bilowday nooma dhammaan hanaankii horumarinta degmada Xeraale oo furaheedu uu yahay in ay hesho golo deegaan oo doorasho ku yimaada waa himilo weyn oo in badan oo kamid ah sugaysay waa himilo weyn oo mustaqbal ah oo inta nool iyo ilaahay intuu nabad ku gaarsiiyo inta dhalan doontaaba ay ku dheefsan doonto waa waxyaalaha dawladnimada laga dheefayo oo wanaagaadka uu leeyahay oo si kale aan lagu hirgelin karinin odayaal dhaqameedyadii haweenkii iyo bulshadii kale oo madashan qaybta ka ahaa ayaa iyaguna u mahad celiyay wasaaradda arrimaha gudaha galmudug waxa weeye waa maalin farxad leh waa maalin aan ilaahay uga mahad celinayno nimcada uu na siiyey waa maalin aan uga mahadinayno cid allaale iyo ciddii ka soo shaqaysay degmada Xeraale waa soo dhawaynaynaa waan baryaynaynaa mahad celinaya waxaan kale mahad celinayaa dadka dhisanaya deegaanka kan oo siyaala arrimahoodu ahaayeen oo isku waafaqay sida tan inay wax u gashaan ayakana waa u mahad celinayaa hadday dhan kasta ka yimaadeen meelo badan ayakana waa u mahad celinayaa waana uga ducaynayaa istiimaadka iyo muwaafaqada ay meesha isugu yimaadeen annagoo muujinayna midnimadii dadkii ku abtirsanayay degmada Xeraale taasi ilaahay baa ku mahadsan midnimada kadib waxaan ku faraxsanahay haddii aan dhalinyaranahay anoo ku hadlaya codka dhalinyarada daahfurka caawa la daahfuraya councilkii degmada Xeraale taariikhduna ay ku beegan tahay 25 bisha December 2022 waxaan noo soo abaabulay iyo waxaan noo wada iyo kuwa noo yimidba waa u mahad celinaynaa walaaliyaal haddaan nahay dumarkii hooyooyinka walaaliyaal waa u mahad celinaynaa ku soo dhawaada magaaladeena ugu dambeyn xildhibaan Fiyoore oo kamid ah baarlamaanka dowladda federaalka Soomaaliya oo goobta ka hadlay ayaa bogaadiyay bulshada degmada Xeraale isagoo ku baraarujiyay hanaanka dawladnimada sharaf weyn waxa ay caawa inaan joogo degmada Xeraale oo runtii markii ugu horeysay oo aan aniga imaado runtii labadii cisho aan ku sugnaa waxa ay ahayd waqti aad u wanaagsan faa'iido weyn oo ka kororsaday hamuunta ay dadka reer Xeraale u qabaan in magaaladooda mar uun ay noqoto mid loogu wanqalay in ay tahay degmo runtii dadaal fara badan ayaa ka muuqda reer Xeraale guud ahaantooda marka loo eego waxa ay soo mareen culaysyadii ku dhacay dhan walba marka loo eego runtii aad iyo aad ayay uga wanaagsan yihiin sida ay ugu hamuun qabaan midnimadooda walaalnimadooda taasna waxay ugu abuurtay in markaasi aan ku qanco safarkii aanu u soo galnay aniga iyo xildhibaanad qaladla inaanu ka qayb galno munaasabadan ina ahayd safar mudnaa oo markaa aanu asiibnay inaan nimaadno si aan uga qayb qaadanno furitaanka daahfurka councilka ama golaha deegaanka degmada Xeraale sida ogtihiin deegaan walba ama degmo walba oo markaa kamida maanta degmooyinka galmudug ka jira waxa dhisay waa dadkooda cidna kor uga iman cidna dheeri uma keenin way jirtaa dawladdu ama inay ka kaabi karto ay ku taageeri karto laakiin markasta cidda nafta ag dhigta waa qurba joogta waa ganacsatada waa dadka jooga marka reer Xeraale inta ku abtirsata ee dibadda jirta iyo inta joogta ganacsato leh iyo inta ku noolba waxaana laga rabaa inaan u duubanno sidii aan u soo gaari lahayn degmooyin
in badan degmooyin soo ahaa iyo kuwo dhowaan gala oo horumar badan sameeyay sidii aan uga baratami lahayn waa midda koowaad ee nalaga rabo haddii aan nahay reer Xiraale. Xuseen Cali Xuseen, warbaahinta qaranka degmada Xiraale.